Asalaamu calaykum daawade fadlan haddii aad nagu cusub tahay ilaawin channelka inaad saartid subscribe sidoo kale haddaad horey noola joogtay kusoo dhawow gacmo furan beri waxaa jiri jiray gabadhan oo la odhan jiray Maaya waxa ay la deganayd odaygeeda waxay ahayd mid aad iyo aad u lacag jecel markastana ku riyoon jirtay iyada oo taajirtay odaygeedu waxa uu ka shaqayn jiray shirkad yar iyaduna waxay ahayd gurijoog markaasi ka shaqaysa guriga Maaya waxa ay raadin jirtay maalin kasta wadadii ay ku taajiri lahayd oo nolosheedu isku bedeli lahayd qoyskan ayaa ahaa kuwa markaasi noloshoodu ay tahay dhexdhexaad waxbana ayna ka dhinayn waxa ayna markasta odaygeeda weydiin jirtay waqtiga ay noloshoodu isbedeli doonto oo markaasi taajiri doonaan balse odaygeedu waxa uu ugu jawaabi jiray nolosheenu waa dhexdhexaad waxbana kama dhinna wixii inaga dhimanna waan gaari doonaa oo waxaan u baahannahay inaan u samirno Maaya odaygeeda waxay uga sheekayn jirtay markasta dadka taajiriinta iyo siday u nool yihiin iyo kharashaadka bishii ku baxa waxayna odhan jirtay anigu noloshaas oo kale ayaan rabaa sidaas ayaan rabaa inaan u taajiro waxayna ahayd Maaya mid iyada oo sheekaynaysa halkaasi riyo ku gasha waxa ayna ku riyoon jirtay iyada oo markaasi isbedeshay oo dhar qurux badan xidhan sidoo kale guri weyn degan gaadhina wadataa waxa uu odaygeedu ka toosin jiray markasta riyada ay ku jirto oo waxa uu odhan jiray riya ayaad ku jirtaa riyada ka kac ayuu ku yidhi balse iyadu waa ay ku xanaaqday oo waxa ay tidhi haddii aan run taajirad u noqon waayey riyada dhexdeeda taajirad ayaan ku ahaaye maxaad ii kicisay ayay ku tidhi balse waxa uu yidhi waan daalanahay shaqo ayaan ka imiday ka corodoo ii keen raashin aan cuno waxayna u keentay Maaya odaygeedii raashin sidoo kale iyaduna waxay soo qaadatay cunto iyagoo markii ay cunteeyeen iska seexday maalin maalmaha ka mid a Maaya waa ay fikirtay iyada oo go'aan ku gaadhay sidii ay shaqo u bilaabi lahayd waxayna ahayd mid ku fiican samaynta askariinka waxayna tidhi waa inaan sameeyaa isla markaasna aan suuqa u iibgeeyaa arrinkii waxa ay la wadaagtay odaygeedii waxayna u sheegtay in ayna ku filnayn lacagta uu odaygeedu soo shaqeeyo oo ay bilaabayso shaqadaasi waxayna ku tidhi anigu iguma fillaa lacagahaad adigu soo shaqaysid balse waxa uu ku yidhi maxaa kugu kalifayaa in aad askariin iibiso waa uu ka diiday markii hore balse ugu dambayn waa uu oggolaaday oo waxa uu ku yidhi iska samayso askariinkaaga iyadoo markaasi bilowday sidii ay u diyaarin lahayd askariin macaan oo ay beri toole iibgeyso waxayna soo samaysay askariinkii iyada oo timiday goobtii ay ku gadi lahayd waxayna ahayd mid markaasi iyadu dadka u dhawaaqaysa si ay ugu soo leexdaan maalmo ka bacdi waxa ay noqotay Maaya mid iyadu markaasi dadka oo dhani iyo carruurtuba ka gataan askariinkeedii oo ay dadkii oo dhani ka heleen oo aad iyo aad u macaan maalin kastana waa ay samayn jirtay xitaa dadka waaweyn ayaa soo doonan jiray oo qofka maalin cuna maalinka labaadna waa uu ku soo noqon jiray dadkuna waxay weydiin jireen waxay askariinkan ka samaysay maadaama uu ahaa mid aad iyo aad u macaan Maaya waxa ay soo saaratay lacag aad iyo aad u fara badan iyadoo askariinkii faa'iido badan ka heshay waxayna ku tiri odaygeeda hadda adiga waan kaa lacag badanahay odaygeeduna waxa uu ku yidhi waad dadaashay dadaalkaaga halkaa ka sii wad waanad iga saxsaneed maalinkaad igu lahayd shaqadan ayaan bilaabayaa ayuu ku yidhi Maaya waxay ahayd gabadh aad iyo aad u lacag jecel askariinkan maadaama ay lacag fara badan ka heshay waxayba go'aan ku gaadhay inay askariinka maadaama uu ahaa lacag yar markii hore in ay qaaliyeyso tayadii askariinkana ay yarayso oo waxyaalihii hadda ka hor ay ku dari jirtay ay ka yarayso wayna qaaliyeysay dadkiina waa ay la yaabeen oo waxay yidhaahdeen soonnagii shalay intaas ku cunnay maxaa maanta dhacay balse suuqeedii waa uu yaraaday oo dadkii hadda ka hor ka iibsan jiray uma yimaadaan maadaama tayadii askariinku yaraatay oo ay haddana qaaliyeysay ninkan ayaa ahaa nin Maaya u ahaa macmiil waxa uuna ka gadan jiray markasta askariinka maadaama uu askariinku tayadiisii isbedeshay waa uu sheegay waxa uuna ku yidhi askariinku waa uu isbedelay sidiisii horena ma aha Maaya waxay ahayd mid markaasi ku dartay askariinka waxyaalo kimikaal ah si uu ugu bato maalin maalmaha ka mid a wiilkan ayaa ka gatay isagoo markaasi matagay waxa uuna noqday mid halkaasi ku xanuunsada isagoo weydiiyey waxyaalaha ay ku dartay waxayna tiri
walaal waxba kuma darin, keliya wixii ay ka samaysay ayay u sheegtay, balse wiilkii waa uu sii xanuunsaday isagoo markaasi kasoo dacweeyey booliiska. Halkii ayaana la yimiday, waxaana la jeegareeyey aaskariinkii isaga oo laga helay waxyaalo kimikaal ah oo markaasi dadku ay caloosha ku xanuunayso. Maaya waa la soo dacweeyey, waxaana la keenay booliiskii, halkii ayaana lagu xidhay. Maaya ayaa ninkii taliyaha ahaa waxa ay ku tiri, mudane anigu ma ihi dambihile, keliya waxaan islahaa lacag badan ka samee, isma aanan lahayn dadku waa ay ku xanuunsanayaan. Ninkii taliyaha ahaa waa uu ka diiday, waxauna halkaasi loogu yeedhay ninkeedii oo markaasi soo daayay xadhigiina kasoo damiintay. Waxa ayna tiri Maaya, waan khaldamay ayay ku tiri odaygeediina waxa uu ku yidhi, maxaa kugu kalifay in aad ku dartid waxyaalo kimikaala ganacsigaaga, haddana waad xumaysay ganacsigaagii ayuu ku yidhi. Waxa ayna tiri, waxaan hadda ku qanacsanahay noloshaydan aan ku jiro iyo farxaddaydan, waanad ku mahadsan tahay jeelka aad iga soo badbaadisay, mar dambana waxaan ma samayn doono. Waxa uuna ninkeedii ku yidhi, wax naga dhiman ma jirto nolosheenna, wax kasta waan haysanaa, farxad waan haysanaa, wax inaga dhiman ma jirto, waxaa loo baahan yahay inaad ku qanacsanaatid noloshaadan. Waxayna Maaya ka dalbatay odaygeedii inuu iska cafiyo. Daawade sheekadeenna maanta intan ayay ku eg tahay, waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyowga.